guulo badan horta la gaaray labadii sano ee xukuumadan xasan sheekh maxamuud madaxweynaheena dal xoreeye shaqo badan la qabtay ahayd goboladii ay ka talinayeen nimanka cadawga ogtiin 30 sano ee ku ilmo dhaleen ukumaha dhigteen ee dadka ku baabi'iyeen ee dadka ku gumeeyeen guulo badan laga gaaray oo ah horumarka ciidanka macawisleyda iyo ciidanka xoogga dalka iskaashanayo waxaa la xoreeyay gobollo badan waxaa la xoreeyay degmooyin badan waxaa dib u soo noqday hankii dawladnimadii sharaftii ciidamada ay lahaayeen Soomaalinimadii ayaa dib u soo noqotay insha Allah waxaan rajeynaa maadaama horumar badan la gaaray deemihiina laga cafiyay cunqabateenkina laga qaaday awalba dalkan hal qof xukumi lahaa madaxweyne ka noqon lahaa in madaxweynaha iyo dhammaan ciidamada qalabka sido la garab istaago sababta horumarka maanta aan gaarnay iyo guulaha la soo hooyay ciidamadan ku gaarnay ciidan hasuus jirin dalkan waxba laga ma qaban karin waxaan rabaa dadka gobolada degan ama degmooyinka laga dagaalamayo inaan la hadlo waa ina ciidamada macawisleyda ama kuwa qaranka militariga ama booliiska wixii meeshaas jooga ina garab istaagtiin biyaha ka daba qaadiin caanaha ka daba qaadiin dhiirigelisiin dal waxaa dhistay dadkiisa waxaa xoreystay dadkiisa Soomaaliya maanta waxay wax ku gaari kartaa midnimo waay midnimada Soomaaliya muqaddis waay raas caseer ilaa raas Kamboni dadkan way wada dhasheen lama qaybin karo wax laga ma dhigi karo insha Allah waxaan rajeynayaa guulahan guulo ka sii badan in la gaaro inta yar oo dhiman in la dhameystiro iyadoo la iskaashanayo dawladda iyo ciidamada macawisleyda kuwa qalabka sida oo militariga iyo shacabka annagana waxaan diyaar u nahay habeen iyo maalin inaan la shaqeeyno ciidamada qalabka sida inaan garab istaagno sababtoo ah waxa nabadda maanta yarta lagu jiifo rag dhiigooda ku timid dada god ugu jiro waxaan rabaa taliyaha ciidanka militariga waa nin waxgal ah wax yaqaano Soomaali isku wadi karo isku soo dumi karo taliye waxa gaar u ogaataa dadka ku shahiiday dagaalka cadawga ilmaha agoonta ee dhaleen waa in si gaar loo ogaada iskoolo loo furaa waxbarasho free ay helaan insha Allah dawladdan waxaan rajeynaa inta dhiman inay guul ugu dhamaato mid kale hadaan ku weydiiyo waxaa jira horumar laga sameeyay dhinaca suuqa ganacsiga Afrika oo Soomaaliya ay xubin toos ah ka noqotay iyadoo in muddo arrintaas dawladda dadaal badan ku bixisay ugu dambeyntii madaxweyne Cashiq ku guuleystay gacantiisana ku saxiixay arrintaas maxay ka caawinaysaa ummadda Soomaaliyeed wax badan ay ka caawinay waa aragtaa hadda dadka Soomaaliya markay dhoofayaan baasaboorada oo kale viisooyinka oo kale dhibaatay ku qabeen maanta hadda ka mid noqon East Africa oo baasaboor qaadano Africa inta 7 wadan aan gali karna oo free no amaanta 350 ee viisa Uganda lagu qaataa ama Kenya lagu qaataa marka isdhaxgal oo waxa dhacaya dalalka dariska nala ah ee walaalaheen ah inaan ka ganacsan karno inaan tagi karno in ilmaheena wax ka baran karaan inaan u gudbi karno waa horumar eedan noo soo hooyada waay wadan marka maxad talooyin ama aad u soo jeedinaysaa madaxda dalka iyo shacabka oo aad ugu baaqilay waxaan dhihi lahaa xukuumadda anoo kala qaadin in xukuumadda anoo kala qaadin in la garab istaago inta dhiman ee dalka ee cadawga uu gacanta ku haayo oo meelaha yarka ay ku dhuumaaleysanayaan inaan looga harin in dalkan uu nabad noqdo in maamul goboleedyada iyo xukuumadda ay gacmaha isqabsadaan sababtoo ah in la wada shaqeeyo waay maanta qofaa wax biri qofaa wax noqonaya in lagu hal isku dhagamaha in hore loo socdo waay dadka dawladnimada deeqda Soomaaliya dhan madaxweyne ma wada noqonayaan hal qof madaxweyne Ilaahay nasiibkiisa u siina halkaas qof in la shaqeeyo oo la saacido oo la garab istaago qof kaligiis wax ma qaban karo madaxweynaha meesha ugu sareysa waa dalada hadaysan golaha wasiirada aysan active ahayn aysan shaqeyneen oo gobolka banaadir shaqeyneen ma qaban karo madaxweynaha shaqo kulli maaha kor iyo hoos waxba kama qaban karo inta madaxweynaha ka hooseysa waxa ugu baaqa in shacabka ay kasbadaan dadka soo dhaweystaan ciidamada garab istaagaan dawladnimada kor u qaadaan ilaa madaxweynaha dawladda kale la xisaabtama daladii uu koreyso shaqeynayso waay inta hoosana ayaga inay dhisaan ee guryahooda inta ka soo baxaan banaanka u istaagaan xukuumadda ee gacanta ku qabtaan intaas ugu baaqala